ii ogolow inaan maanta kaaga sheekeeyo mabda'a joogtaynta hal shay oo heellanaanta maalin kasta si aad u samayso hal tallaabo oo dheeri ah midaasoo ku sii dhoweynaysa halkii aad qorshaysay ka hor intaadan dhaqaaqin waxaa muhiima inaad leedahay sawir cad oo aad u socoto qorshe si cad loo qeexay sideedaba ma dhufan kartid meel aadan arki karin waxaa taa la mid ah inaadan iman karin halka aad u socoto haddii aadan garanayn meesha ay ku taal marka waa inaad qaadataa maalin toddobaad wax kasta oo ay kugu qaadato si aad u qeexdo halka aad u socoto iyo halka safarkan kula aadi doono Salama wad wada garanaysaan aabaheed waxaa lagu naanaysi jiray sahayda socotada waxay ka soo jeeday qoys sharaf iyo karaamo ku leh carabta xilliga jaahiliyadda Salama allaha ka raali noqde saygii ugu horeeyay wuxuu ahaa Abu Salama magaciisana la oran jiray Abdullah ibn Abd Asad Salama iyo Abu Salama labaduba waxay ahaayeen qoysaskii ugu horeeyay ee soo islaama waxay ka carareen wadankoodii waxay ku noqdeen qaxooti dhulkii xabashida sabra waa gaarahee Salama iyo Abu Salama waxay ugu dambeyn yimaadeen magaalada Madiina iyaga oo la baxsanaya diintooda wuxuu waqtigu isku raba Abu Salama waa geeriyooday Allah ka raali noqde Salama maya hooyadan Salama waxay heshay wixii adduunka ugu qiimaha badnaa waxaa guursaday Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa dhici karta in lagugu naco waxaad sameeyeen sida hooyadan Salama ay dhibaatooyinkaas aysan mutaysan u martayba miyay iska fadhiisteen hadda waxaad leedahay bartilmaameed ku cad laakiin sideed u gaari kartaa hadafkaas aan ku bilowno go'aanka ah maalin kasta in aan sameeyno hal shay oo ku dhaweynaya yool kasta oo weyn oo aad nolosha ka leedahay si kasta oo ay u yartahay tallaabadaasi si kasta oo aafooyinka iyo caqabaduhu u istaagayaan wadadaada tani waa noloshaada aan ka hadlayno miyay jiraan wax ka muhiimsan mabda'a ka dambeeya joogtaynta waa in la dhiso caado joogto ah midaas oo aad ka heli doonto gabi ahaanba dadka guulaystay dhammaan safar ayaan ku jirnaa haddaad og tahay iyo haddii aadan balla socon si kasta oo aad nolosha ugu dhaqanto waxaad tusaale u noqon doontaa dadka kugu xeeran inay kugu daydaan tusaale noocee ah ayaad rabtaa inaad ka tagto bal isweydiiyo adigu kuma tahay maxaad sadanaysaa waxaa jira website aad ka heli kartid qaybta hoose midkaas oo aad ka akhrisan kartid mawaadiic muhiim ah waxaadna ka heli doontaa qormooyin aanan halkan ku soo gudbin